taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha gobolka Sanaag Dhammaan Maxamed Isbootor oo weheliya saraakiil ciidankiisa ka tirsanaya isagoo shir jaraa'id ku qabtay maanta xafiiskiisa magaalada Ceerigaabo wuxuu ka hadlay lacag faafso shilin Soomaaliya oo bariyahan ba ku soo qulquleysay magaalada Ceerigaabo sidoo kalena wuxuu waxba kama jiraan ku tilmaamay warar warbaahinta qaarkeed daawacday oo ku saabsan in lacagtan faarsada ahi ka soo degtay meelo kamid ah deegaan xeebeedyada waqooyiga gobolka Sanaag wuxuuna halkaa talabixin uga soo jeediyay saxaafadda madaxa bannaan isagoo arrimaha ka hadlayana taliyuhu wuxuu شفت حافظات كان أنا لو أطلع عيدا كإلى وضع حيابها قبل كالثلاث صديقة في الاتحاد أنا جا أيا وعي إنه كان سكون بعضنا وواحد دي شيء ورجيس كواهن ورطع وعي تطبيع الله تكيب بشها ويري باش الله يرضى علامتي lacag baa ka soo degtay fuul jari lacagta waxba ka jiraan ilaamati meesha la yiraahdo waa xira ciidan halkaas waaheen arrinka uu sheegay inuu leeyahay halkaas lacag ka soo degtay waxba ka jiraan xukuumadda dadka shacabka ee reer Somaliland meel kasta ay joogaan waxaan u sheegayaa inaan arrinka waxba ka jirin حكم العقد تم ما أنت تمي وروح اللي يجلسوا يسميه ما شاء الله يراهضوا قل ملك بيات كواحد الدنيا إن لبقاته ميزانية دين العقد إن هذا السومالي اللي أنت دولار كنا وحوي العقد كتشوشي قال نتحافظ وحن الله وهذه شراء معكتان وسيرده مسؤولين تعيد المرة وروحنا نقوم ما جاي وحكي ما هاي وحوي مدة نقدون إياه ونودي إنه نحن هو حرام وحاس تمركو إذا ما تدور كيس قاضني أنا جن وإحنا ويدي وقر قاض صحافة دين. سلوا كلام تريحني وحكنا واتشي إن عن حيابها قبل كالسناق أنا كسر دقي كان فكري وحكستا ودك الصومال كعراسك. عد كسر وحنا وقدقينا النجا حيابها يا الصومال الله تمشي دقي كرام وح الله لو وحي حارن وكم ممنوع. عبد الله حسين درويش شبكة عالم جود وينيس مقالة عريق أبو.